وحاجات ما سكله وحاجة iyadana talo maasadaas maxay ku saabsantahay maxay ka hadlaysaa maasadaas waxa weeye dadka naga Soomaaliyeed horta qayb inta badan markaad fiiriso kalsoonida un baa ka maqan isu kalsoonaanta nafsiyeenta iyo ko ruux kale iska eega iyo ko hebel muxuu yiri iyo maxaa loo yiri waxaas iyo maxay waxaas u dhaceen iyo maxaa waxaas asigoo qof laga yaabo inuu kugula dagaalo ama de kugula murmo wax uu dad kale ka maqlay ama qof kale uu yiraahdo hebel qofka waa isdagaalay adna dhanka kale culuw marka waxay ka hadlaysaa waxyaalo fara badan aan kalsoonidaas ku saabsan markaan arkay dadka naga niyad jab oo kale waxyaalaha niyad jab oo kale waxaad maqlaysaa waxaas hebel ba hada koor ku lug ay oo dhibkaas uu ku dhacay ka joog qofku leh de hebel anigu ma ihi hebel ba noqonahayo marka hebel ba halka mar ku guuleystay mar hebel ba halka mar ku guuldareystay ka joog waxaas waa wixii ka joog macnaha inay isniyad jabiyaan oo hanka inta badan isniyad jabiyaan aysan dad isdhiiri geliya bay maansadaan ayana ka falanaysaa hay maansada bal hadaad guda gashay maansada talo waxay leedahay oraah aan ku iri adi iyo oran qof kale ani wax afkaagu diidana ardaaliyo igransiin aragtida qof leeyahay aafayeysan kula noqon haw arag admiga guud irdahaad ku nabadgeli qof walba aamin oo umaleyn ma aragtay qof walba aamin eeda ruux la daris yahay ha u noqon eeda ruux la daris yahay ha u noqon ardaa xume ana hadii qof asagu qof u eedaysan inaad inta soo dhex gasho lagu yiraahdo ila eedo qofkaas ha u noqon ardaa xume adoo garasho dheer layaan ibliisku ku tibin ilays dhowr ayaama adoo shaqo abuur gala oo lixdaadu taam tahay orod qaado shileemkaaye ku qoran naf kula mida mana waa naf kula mida ma aragtay orod qaado shileemkaaye ku qoran naf kula mida admiga wartabintood ifkayeysa ka dhigan laciif aan hal garanayn na wax qof wax jira ma waxa sayaysa way marka qofkii dadka iska dhex eegay ruuxa rumaysanaya marka asaguna sida uu ma aragtay u shaxaasid ku lulin iyo nacabka hadalkii hankaaga iimayn adigoo hansara jecel daara ilayska nolosho yaan iftiinka ku baxay mugdi gelin insaan kale intaan moodo ka tahay inuu yahay mid ka kale oo hilmaanta ka tahay mana waa shakhsi iska dhex eegida wax la yiri ayaa dhahay wuxuu yiri ayaa dhahay ma orana kana dhahay sakaa ileen same arar same ka doorbido adoo garan qofka tahay ha iska eegan ruux kale waxa tahay baa tahay ha u caran abuurta kugu sooray eebo arxan samidu waa guul إحسان فليدو واللبن حقيقة تبينتو وإذا أسلوب هذا الكوا فرح آمن قليدو وانولو الأمان كنت بيها كان أريها قبيان ترى نعلد إيه بالجسور نجم جن الله يو أنسيدو بالتلاذي أوجد بيها بالجراشة أنا روحها فهن سمين عفيس كا وتجوم بدن أفر كاد سليه ده يروح بعد كتبي سيء آدم كبيس أديجنا كان كاتبان أضاء أوران محيط هاي أم فارين تبشر رالي جرين أوجو الحار أنا تبي أراه صحن حشمت قال إنسان كو حرمه إذا الجدون سي عسادا أستان وعن أيضا نوغو شيء أرسمي كنولو أفرتات المان صحن تلوي يا عند جايب الأجادة دوليو أفر كلنا واسمع إنه يشيء بعكرن أجو إنا تهي نفلي كلا أسلوب ترين روحنا ويتال بمن أنشحنا هرير مرين روح والبنا إشي قبل أفكي فرن وهذا الأوران حركي آسين قرشة أدو جوش هران كرا هأورين دقاحيضو دائما أد أستهيش أحد يقود على المرين والنقار أضاء ولدي بسعودها النقانة أنت النعيب سمانتها يكو أوران اللي ته الدنيا دان لعيفك أفكارها إسعيتشي أمورها إسدوتيا مسنا إيلك اللي جاجلنا هأورح لين وليجا هإنكرين وعي جتشرا وحي تجاهها أيضين تمادنا أفيف دجو أبار تهاجن جورتا هنا لو من أيام قرية قرشلك وأنبح دقاقها إنسان نفتهضنا إرسان كشهادنا أوف سنة هنا عاصم قفني ماذا هنكاجنا هيب سنة أمر سيب القرشلة وحكنا نقول الدنيا ده آخرنا وعمل دجو هنا نقول كان إيل قالي أسوق واحد يفلي الدنيا ده وحسوق لين runtu waa udgoon badan qaraar bay u tahay ruux kalsoonida irdaha dhigay beentu waa alhuma baas abshir bay u tahay ruux arxan biday khiyaaliga ee ogaal saxnaan soco ha u noqon cabsida ehel amuuraha tan ugu adag adiga rumayn kare wajah oo walaac diid abidka haniyad jamid waqtiyadan isdabada yaal iyo sakaad kan abid adduun waa in koobano waa ayaanba nooc oo waa gelinba agabkiisa ee hadduu ku weeciyo ha u arag adduunyada kan ibtirada loo qoray aadanaha kuwaan helin waxaad adigu haysay si ee kan ka daran haddaad orod dhaqaaqdo arliga aad dhaxlaafiyon adimada mid baan hayn ama naafo socotaa afku dood haddaad tahay mar aftahan la jecel yahay quraan mid baan karin haddaad dhaga irmaan tahay oo maqal cudoon tahay adinkaa mid baan maqal haddaad aragti dheer tahay oo ishaara wacan tahay araggaba mid baan hayn haddaad ubad cayaarsin oo farax maqsuud tahay hal ilmaa mid baan hayn haddaad adigu fay tahay mid baa waa li iimoon
haddaad ilo barwaaqa ayaan weliba daashoon oo mana mid baa tagan oo maskana dhex joogo gargaar eebba dhowrta anfac la isku tuhmiya in yar cood la sheegana haddaad adigu hayso eber baa mid joogaa wixii eebba kuu qoray adigoo xumaansan qaado oo ha gocanina ka sii furo albaab kale waxaa tagay ha eersana u dhaqaaq wax dheef loo il xariido jiiftiya kala garo abaar daran waa akhlaaq hubsiimadu aadmi uu hal dheefsado inkastoo uu khalad dhaco kan saxaa ammaan hela adoo farax abuura ilaahiisa kaa quban asagaagu iyo maadmada daala kuu arag abaal ruuxa kuu galay haddii aadan gudi karin iyo iloobin garashado ha ka tegin adduunyada adoo hana nasiibkaa imtixaanka noloshana kaga gudub adkaysiga una yeelo samir dhaba taaga udubka guushoo tala saaro eebbaha la iskama asqoobay alla aamin guul tabiya adeec waalidkaaga iyo allihii ku umiya udgonow rasuulkii sallallahu alayhi wasallam adaa mahadle eebbow sakhir adigaa awood le kan il daran allahayow kan il go-an allahayow ku dawey irsaaqdaa ku xanuunsan eebbow caafimaad ildoogsale ku irsaaq allahayow naga cafi allahayow naga caafi eebbow dembi dhaaf dembi intaan tiraabno naxariis adaa leh hanoo caron allahayow insaankii ku caasiya soo hanuunay eebbow adigaa awood leh adduunyada kuwaan lumin cadaa mudanna aakhiro naga yaa allahayow markaas intaas ducadaaba unbay dabcan waa maaso talo talo waano intaba xabaarsan talada waa aad in maasadaas markii aad curinaysay ma dad oo aad talo u baahan mise dad u baahan in la waaniyo baad aragtay in badan nafsiyanteeda koowna ka ahaato oo inta badan waxaan isku dayaa farxad aan dhis oran karo dhigay ima hilmaasho manaha qofku asaga farxadiisa dhisan kara asaga murugadiisa abuuran kara labadaba asaga la soo bixi kara maadaama ay sidaas tahay waxaa dhacaysa in badan dadku inay dadkooda farxadooda marti uga yihiin in qofka kale tani maanta dee usan asaga iska hadlayaan dad kale ka hadlayo oo wax ugu badan dee qofku meeshuu ku mashquul lahaa arrimihiisa nafsiyantiisa horumarinta nafsiyantiisa amuuraha taas uu ku mashquul lahaa yaa waxaa laga yaabaa naf la mid ah inuu waqti badan ku bixiyo iyo wax oo markaa dan ugu jira